بسم الله الرحمن الرحيم. وفدقي وهجاميني مدحوينها جمهورية الصوماليلان مدن أحمد محمد محمود سيلانيو وحا نمانتا نكون ليالني رئيس وزراء دالكن إنجليزكا مستر ديفيد كاميرون كلن كاسيو كدعي حرونتا رئيس وزراء حفيز كيسا داونينغ ستريت وحا كلن لبدا جيسود أي كغهلين علاقاتك iyo iskaashiga ka dhaxeeya jamhuuriyadda Soomaaliland iyo dalka Ingiriiska oo dhinacyo badan leh waxay labada madaxweynaha iyo prime ministerka Ingiriisku ay ka wada hadleen barnaamijka wada shaqeynta iyo iskaashiga ee dawladda Britain ay ku taageerto dalka Soomaaliland oo la faaqiday sidii barnaamijkaasi loo baraarin lahaa waxtarka uu dalka u leeyahay runtii meelo badan laga taataabtay waxa kaloo amuuraha laga hadlay iyana kamid aha ugu waaweynaa shirka ay dawladda Ingiriisku ay qorshaysatay inay ka qabato dalka Ingiriiska bisha May ee soo socota todobadeeda shirkaasi oo hore dawladda Soomaaliland loogu casuumay hase yeeshee ay xukuumadda Soomaaliland ay go'aan ka soo saartay in shirkaasi ay u aragto shir khaas u ah arrimaha Soomaaliya marka aanu qiimeynay shirkaasi qodobada nuxurka laga wada hadlayo iyo qaabka shirka loo soo agaasimay intuba waxay xukuumadda Soomaaliland ula muuqatay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu maanta si qeexan oo ballaaran oo tifatiran uga hadlay in shirkaasi uu arko shir Soomaaliya khaas u ah waxtar u yeelan kara Soomaaliya aanu jecelnahayna in gacan laga siiyo amuuraha maanta Soomaaliya hor yaala hase yeeshee madaxweynuhu wuxuu sheegay in Soomaaliland markii ay ka tashatay arrinta inuu go'aan madaxweynuhu ku qaatay in shirkaasi aanu ahayn shir meel uga bannaan tahay madaxda iyo mas'uuliyiinta Soomaaliland hase yeeshee intaa kadib ra'iisul wasaaraha dalka Britain waxa uu hadalka markaa la wareegay wuxuu aad ugu dheeraaday qorshaha dawladda Ingiriisku ka leedahay shirkan oo ku sharaxay inay tahay shir la doonayo guud ahaan mandaqada Geeska Afrika iyo wadamada kale Afrika iyo dunidaba inay si muuqato oo xoog looga soo qayb galaan sidii Soomaaliya oo transitionkii uu kala hor dhamaaday gacan loogu saari lahaa ama looga siin lahaa beesha caalamku in ay lugaheeda isku taagto in nabadgelyo darrada ka jirta Soomaaliya dunidu ay gacan ka siiso khaasatan wadamada jaarka la ah haday Soomaaliland tahay haday Ethiopia tahay haday Kenya tahay haday wadamada kale ee Carabta iyo wadamada kale jiiraanka intaba tahay in dunidu ay si weyn shirka Soomaaliya maanta gacan uga siiso Soomaaliland ay tahay siyaasiyan imika arinta halkan loo imanaya arin Soomaaliland iyo Soomaaliya arrimaheeda aanay ahayn tahay arin u khaas ah Soomaaliya laakiin looga baahan yahay talo iyo tilmaam iyo ka qayb galba dawladda Soomaaliland sida dawladaha kale jaarkuba ay uga qayb galayaan waxa kale oo ra'iisul wasaaraha Ingiriisku uu ku dheeraaday in ay faa'iidooyin ugu jiraan dawladda Soomaaliland ka qayb galka shirka caynkani martabad weyn oo dhowr iyo 50 dal oo madaxweynayaal u badan ay ka soo qayb galayaan in fursad uga bannaan tahay Soomaaliland oo ay bareeraheeda siyaasiga waxay bulshada caalamka ka doonayso horumarka hadda gaadhay iyo waxay u baahan tahayba inay tahay meel ay Soomaaliland aan marti uga ahayn cid kale oo ay ku soo bandhigi karto sida awgeed dawladda Ingiriisku waxay si aad iyo aad uga codsatay in madaxweynaha Soomaaliland iyo dawladda Soomaaliland ba ay tixgeliso ka qaybgalka shirka arintu markay halka martay madaxweynaha Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo waxa uu markaa u sheegay dawladda Ingiriiska inuu arinta uu ka fikirayo dabeedna uu go'aan ka qaadan doono go'aankana uu soo wargelin doono markaa madaxda iyo mas'uuliyiinta dawladda Ingiriiska khaasatan prime minister David Cameron oo madaxweynuhu uu si toos ah markaa xiriir ula sameyn doono والسلام عليكم ورحمة الله.